maanta inta waxaan iskugu imaanay in aan u dabaaldegno fursad aan helnay in 17 milyan oo dollar districtigan aan u soo dhicino. Soomaalida gobolka Minnesota oo ay weheliso xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa u dabaaldegay lacag ay ka heleen dowladda dhexe ee dalka Mareykanka, lacagtaasi oo tiro ahaan gaaraysa 17 milyan oo dollar oo ah lacagaha qoondada sanadlaha ah ee dowladda Mareykanka ku bixiso deegaan dowladeedka kala duwan ee dalkaasi uu ka kooban yahay. haddaba gobolka Minnesota ayaa sanadkani nasiib u yeeshay in la siiyo dadka ku nool 17 milyan oo ah lacag ay dowladdu ugu talgashay xoojinta adeega guud ee dadweynaha. sidoo kale xildhibaanad Ilhaan ay sheegtay in dhammaan dhismayaasha gobolka Minnesota loo sameyn doono adeegyada dabdamiska, iyadoo dhanka kale sheegtay in la dhisi doono guryo cusub oo loogu talgalay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi, iyadoona hadalkeeda ku sii dartay in la furi doono xarumo lagu tababari doono dadka shaqadoonka ah. maanta inta waxaan iskugu imaanay in aan u dabaaldegno fursad aan helnay in 17 milyan oo dollar districtigan aan u soo dhicino. saad u ogtahay sanad kasto federal governmentiga lacagyaal badan qof kasta districtigiisa loogu talagalaa. marka waa markii ugu horeysay aan fursad u helnay in lacagtan aan keenno. waxay ka caawinaysaa sidaad u ogeedo kale siidar dab ka dhacay bildhimada qaar midkiis sprinkler muusan lahayn, soo lacagta aan keennay hadda waxay taraysaa in oo bildhimada dhan public housing sprinkler loo suubiyo sidoo qof uusan dab ugu dhimanin. hadda ka bacdi waxaan keenay lacag oo 1.8 million dollars oo guri lagu dhisaayo oo familiyaalkeena say u helaan apartment oo 3 qol ama 4 qol ah, workforce development meel dadka shaqooyinka loogu tababarayo say shaqo u helaan. marka lacagtan badan wax badan ay community u tareysaan, projectyaalkana ay aadaysan waa specific dadkeena siday uga faa'iideysan. dhanka kale xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa ka hadashay arrinta macallimiinta magaalada Minneapolis oo isbuucii aynu soo gudubna sameeyay gadood dhanka mushaaraadka ah, iyadoona sheegtay in macallimiinta ay mudan yihiin in tixgelin gaar ah lagu sameeyo dalabaadkooda si aysan ardayda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis aysan ugu dhicin waxbarasho xumo. macallimiinta Minneapolis public schools waxay u dagaaltamayaan in ciyaalka halka galaas fadhiyo ay dad ciyaal yar ay noqdaan sidii macallimiinta wax fiican ay u baraan. marka waan ognahay annaga haddaan waalidnahay waxaan rabnaa macallimiin oo diyaarsan, waxaan rabnaa macallimiin oo ciyaalkeena wax bari karo, waxaan rabnaa ciyaalkeena inay fursad helaan galaaska ay ku jiraan, in ma rabno 40 qof ama 50 ciyaal hal galaas cunug wax ma baran karo. marka waxaan ku dadaalaynaa in ciyaalka galaaskaasi ku jiro inay noqdaan ciyaal wax la bari karo oo macallimiintana ay wax bari karaan. marka macallimiinta inaan taageerno waaye because ciyaalkeena u dagaaltamayaan. ugu dambeyntii gobolka Minnesota ayaa markiisa ugu horeeyay nasiib u yeeshay in dowladda dhexe ee Mareykanka ay siiso lacag gaaraysa 17 milyan oo dollar oo loogu talagalay xoojinta adeega dadweynaha ku nool gobolkaasi oo u badan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi guud ahaan xaafadihiisa kala gedsan. Darmaan Atore, Nairobi.